waxyaalahan marka la fiirsanayo zinadan iyo anshaxumadan iyo yani haweenkan iyo raggan qaaqaawan la fiirsanayo waa virus iimaankaagii dilaya waa virus dilaya akhlaaqdaadii waa virus diintaadii dilaya waa virus dilaya bal xataa raganimadaadii dilaya oo caafimaad darro raganimadaadii u keenaya halis uu leeyahay baa waxyaalaha aan la yaabay waxaa ka mid a haweenaya kitaab anigoo aqrinaya yaaquutu nafiis la yidhaha maalin dhawadna qisadaa waan sheegay casharka dhexdiisa ka sheegay haweenaya igu timid masjidka markaa cashar ka soo baxay ay yiridda masjidka ii istaagtay markaasi waxay tihi aniga iyo ninkaygan waadowna kala xukum maxaa idinku kala xukumaa waxay tihi dhowr sano ninkan waxaan ka celin waayey bahalkan uu fiirsan jiray aflaam alibaaxiya filmadan foosha xun naagaha qaaqaawan iyo ragga qaaqaawan ee foolxumada samaynaya ayaan dhowr goor ku qabtay isagoo fiirsanaya war ilaahay ka baq oo carruurta haddaad fiirsanayso xataa carruurta kala dhex bax ayaan dhihi jiray waa diiday waan ku qabtay haddana isagoo wixii fiirsanaya markii dambe wuxuu yidhi mar dambe haddaan fiirsado gurigaba iga eri oo nin ba ha iga dhiga waan ku qabtay tiri haddana mar kale isagoo wixii fiirsanaya ka bacdi waxay tihi ninkii wuu xanuunsaday xanuuna ilaahay ku salliday markuu xanuunsaday gabadhii reerka ugu weyneed ayaan idhihi tiri aabbo u qubee maadaama uusan qubaysan karin aabbo u qubee gabadhii waxay tihi markii aabbihii ay u qubaynaysay gabadhii wax ka raadiyuu naagaystay wuu ku soo booday hadda waa gabadhiisii waxyaalaha kuu imanaya ood maqlayso oo mujtamacan dhexdeeda mujtamac ay kuu keenayaan waad la yaabi ilaa dadkii waxa weeye qofka wadaadka ahe yacni masjidka duruusta ku aqrinaya waxa weeye waa maxkamad oo kale maxkamadna wax walbaa loo keenay wax walbaad loo keenaad ku arkay waxaad la yaabtaad ku arkay qofka qaaliga ahe maxkamadda fadhiya xog badan uu mujtamac ka haya wadaadkuna xog badan uu ka hayaa mujtamac leannahu qadiyo walba ee dhacda midda ugu foosha xun isagaa la weydiina oo la leeyahay saana dhacday ka war gabadhii ku soo booday tir gabadhii ma sheeginay tir waxay sheegto ma taqaano aabbahay ay xoogay ma dhihi karto mar labaadee haddana waxay tidhi oo sidii gabadhii ku sameeyey gabadhii markii dambe markay adkaysan weysay way ii sheegtay tir hooyo saas ay igu dhacday waxaan ku idhihi tiri waxaan rabaa wax cad ayaan rabaa inaan ku arko marka qof baxdiyaa iska dhigiya oo adeegii wax doontay meeshaa laabkaan geliya maantana u qube sidii hadduu kugu sameeyo qayli markaas oo waxaan isla ognahay aabbow dheh oo asaga aabbow idaa dheh baaqaasaan isla ogaanayna aabbaa meesha jooga aabbaha leh shaydaan weeye aabba meesha ma joogee war aabbow dhehen waxay tihi meelaan ugu dhuntay hadda asagii waa la taagan yahay markaas marka hadalka ii sheegayso marka meelaan ugu dhuntay sidiisa aabbow waa soo booday tir aniga isagoo ku kor fadhiya ayaan arkay bis waayaan idhihi tir maanta ay isugu keen dambaysa qadiyadaadana qaraabadaada iyo ahalkaad ka dhalatay ayaan arrintan u sheega marka waxay aniga igu timid ay leedahay ninkan ma ka furanahay maadaama anigiina uu inaagaystay oo carruur aan u dhalay gabadhaydiina uu naagaysanayo asagu u aabbaha u ah waxaana waxaan yacni sabab u ahay tiri oon ogahay filmada xunxun uu fiirsan jira leannahu filmadan xunxunka la fiirsanayo aflaamta ibaaxiga ah waa virus dilaahoo diintaaday dilaya akhlaaqdaaday dilaya raganimadaday dilaya
waxay kaa dhigayaan shahwadaada shuduud jinsi ay kugu abuurayaan wax la yidhaha shuduud jinsi shuduud jinsi waxaa loo yaqaan shahwada inaad ka raadiso meesha ilaahay uusan ugu talagelin wax cagsi shahwadii dabagedinaya yani waxaan aflaamta xunka shahwadaadii lugaha ku socotay madaxay ku soconay waxaa laga yaabaa xoolaha inaad ka raadiso waxaa laga yaabaa carruurtaada inaad ka raadiso waxaa laga yaabaa markii haweenaydaadii ilaahay uu kuu xalaaleeyey aad aadayso inaad awoodi weyso oo xalaashaadii aad aadi weyso waa cudurrada halista ah oo filmadu ay dadka ku beeraan khadiir wey jiddan marka islaamtaasi waxay ugu tiri ninkan waxaa habkan ka dhigay oo shaydaankan ka dhigay waa waxaan u fiirsan jiray aflaamta marka sidaasay yani zinadu mar walbaba waxay dadka uga dhigi bahal caadi yacni orgay oo iska socda wax fadiilay wax sharaf aan lahayn ayay kaa dhigi marka ilaahay subxaanahu watacaala waxaan weydiisanaynaa mujtamaceenna in ilaahay uu ka dahiro oo ilaahay uu ka saafi gareeyo maradkaas iyo fasaadkaas aad u fool xun ilaahay waddankana ilaahay subxaanahu watacaala ee muslimiinta o dhan ilaahay ha ka dahiro dad mu'miniin ee akhlaaqdooda iyo iimaankooda ilaashada ilaahay ha ka dhigo وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الكرام أجمعين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين الحمد لله